gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Sheekh Cabdi Cardin Xaaji Abakor ayaa maanta xariga waxa uu ka jaray malcaamad cusub oo laga hirgeliyay deegaanka Raari ee degmada Sheekh gobolka Saaxil waxaana xariga jarkaasi ku weelinayay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada Sheekh Maxamed Ibrahim iyo mas'uuliyiin tiro badan oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa munaasabadii xariga lagaga jarayay malcaamadaasi cusub mas'uuliyiin sarsare oo ka socda dhalinyarada ee Marso oo horkacaya gudoomiye ku-xigeenka daladaasi Maxamed Faarax Axmed ugu horeyntii waxa munaasabadaasi xariga jarka ka hadlay Maxamed Faarax Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka dalada dhalinyarada ee Marso oo ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay intii ay ku guda jireen sidii ay u hirgelin lahaayeen malcaamadani waxa la yiri xabaali ninkii loo kala tag barnaamijkii ururka Marso ku xidhnaa ee dhismaha uu naga soo dhamaaday wanaga maanta ballanqaadkayga haynaan labada qol ee nimada iyo hablaha idin dhisno caruurtii malcaamada lagu baro malcaamada ugu tala galay aanu ka soo kafaala qaadnay qoliyaha qurba joogta ee barnaamijkaas oo isku soo dibariday wanaga faraha ka qaadnay xariga idin ka jarnay idin dhameystirnay waxa la idinka baahan insha Allah idinkii wasaaradda waxbarashada iyo degmadii oo inagala joogaan iyagana de mas'uuliyiinta fara badani aad la shaqeeysan hadii la haydhaado waxbarashadina sidii laga rabay caruurtii keentaan oo halka ka sii wadaan qoliyaha qurba joogta ee lacag soo bixiyana waxaan oran lahaa hadii la haydhaado barnaamijkii aan noo soo igmateen waa taa maanta xariga laga jarayo ee dadweynihii ka mahad celinayaan insha Allah waxaan leeyahay Ilaahay ajarkii iyo xasanaadka ugu tala gasheen halka ugu tala gasheen Ilaahay ka gaarsiiyo loolan jiray inaan toyniman hadlan habartiina wax ma siiso horta qoladeen reer Raari markii aad tiraadeen war wax nala qabta ay arintaas bilaabantay waxa kale aan doonayay inaan aad ugu mahad celiyo odayaasha deegaanka oo wada dhan oo waxa ay tuseen iyo anigaba ay tuseen anigoo xaggaana gaarsiintay tay wax la yaab leh way gudidii oo dhan iyo nimanka hawsha waday oo dhan ay halka ay nala joogto aad bay mahadsan yihiin qolada qurba jooga wixii ay halkan ku tareen yareen mahadnaqoodana waan gaarsiin doonaa halkaana ku joojin maayana way wadi doonaan ugu duceynayaa dadka magaalada degan in Ilaahay uu garansiiyo in dadkan caruurta wax ku baraan oo caruurta wax ku barataa kuwa iyaguna macallimiin ka noqda oo anfaca dadka ay ka soo baxaan insha Allah bidnillaahi kariim halkan waxa haynaa $500 oo ay reer Raaris bixiyeen oo lacag ah oo loogu tala galay in agab loogu sameeyo malcaamada wixii kale qurba joogta ku soo dareeyana waan u fadhinaa insha Allah bidnillaahi kariim aanuna ka ahay sidoo kale waxa iyaguna halkaas hadalka isaga daba maray odayaasha deegaankaasi oo si ballaaran u bogaadiyay ururka dhalinyaradan iyo xildhibaano iyo waxgaradka deegaankaasi waasi way muuqataa cid walba way u muuqataa waxbarashada caruurta hadii aanu galo taabka anagu hadii aanu qasaareyno anaga nasiib darro anaga nagu taab jeeb ka soo baxay rag weeyii hadaanu qasaareyno anagu caruurta wax ku bari weyno waan soo maqlaynaa nasiib darro Raari haysata bay noqonaysaa marka wax barawaaya badin ma ay hadalka oo hadal horaa loo dhameeyay waxaan ka sii dhahdana waa mahadnaqun iyada horta mid weeye nin waliba ha ogaado adduunyada ayadoo iska dhisan buu dhulka ka tagaya Ilaahay aniga intaa uu garansiiyay tolkay iyo nin walba iyo malcaamad iyo aqliga ah Ilaahay ugu alhaameeyay de hadii ay iska qasaareysan waa nasiibkin dhamaan waan salaamayaa martida iyo reer Raariba salaan dabadeed waxa aad iyo aad ii farxada tuuladii Raari oo aan anigu sir fara badan ka hayaan dadku ka hayn oo maanta Ilaahay igu sameeyay malcaamadoodii taaganahay waxaan aad iyo aad Ilaahay uga baryayaa iskuulkii iyo masaajidka koow iskuulkuna ku xigo Ilaahay cimriga igu simo gabagabadii waxa munaasabadaas soo afmeeray gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Sheekh Cabdi Cardin Xaaji Abakor oo dhamaantood batibaaxay inay muhiim u tahay dadka deegaankani malcaamadaasi cusub iyagoo dadka deegaankaasina kula dardaarmay inay ilaashadaan malcaamadaasi cusub ee looga hirgeliyay aswaati dardaaranka ahayd halkan waxaan ka ballan qaadayaa buugta iyo qalbanta ugu horeysa reer Raari aanu keenay hadii la yiri ay ku baranayaan ay macaamada ku baranayaan Kenya hadii la yiri iskuulka waan dhisayna iskuulka waan idin ku xishiinayna hadii la yiraahdo gudoomiyaha waxbarashada iyo anaga isla kaashanayna jeebeljigan hadaan doonaan ka dhisayna anagu sanadka soo socda laakiin ardayda soo galiya ardayda ku soo xareeya halkan kal waraabaan iyo iskuulkeedii aanu imika isagu noogu dhamaaday 4 class 2 office koodii
muxuu ahaa istoolkoodii suuliyadoodii afara iskuul aad u weyn ardayda kusoo xareeyaan ku niri ardayda marka soo xareysaan wixii dambana naga eega biyaha idinkeedii koowa haddii aan la idhaahdo haddii aanu barkad idin qodno publica iyo haddaan dhaam kale idinku darno iyo baahiyiinanaba sida u kala mudan yihiinna deegaankaasi si kastaba ahaatee ururka marsa iyo malcaamadani waxay dhagax dhigeen muddo laga jooga 2 bilood iyagoo maalintii ay dhagax dhigayeen malcaamadaasina sheegay inay sida ugu dhaqsaha badan u dhammaystiri doonaan waa maxamed cali axmed maxamed kaabe Ariel TV magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil.